bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay oo hadahan oo kale ka daawataan page-kan waa 18 bisha Afraad 2026 muuqaal wareedkan soo socda hadda ee beedmo waxaad ku daawan doontaan macluumaad ku saabsan xiisad u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda federaalka oo ka taagan gobolka Gado kadib markii la shaaciyay hadaba maxaa la shaaciyay intaan ku soo gudbin fadlan muuqaalkaas share garay oo u geed dadka u baahan YouTube-ka ayaad muuqaalkan ka daawanaysaa waan ku jeedaa fadlan muuqaalka leega saar oo share garay waa iska daawanaysaa waa ka tagaysaa alxaasidu la yaflahu abadan saaxiib xaasid ma liibaano intaasna waa iska canaan yar aynu ku bilownay saaxiibayaal maamulka goboleedka Jubbaland ayaa si degdeg ah uga hor yimid qorshe dowladda federaalka ku doonaysay inay doorasho uga qabato deegaano ka tirsan maamulkaas gaar ahaan gobolka Gado sida uu dhawaan shaaciyay guddiga doorashada ee madaxa bannaan madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Sayid Aadan oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in ay la yaab noqotay sababta ay dowladda dhexe u doonaysay in ay Gado oo kaliya doorasho ka qabato maadaama Jubbaland ay ka kooban tahay 3 gobol waa sida walka u dhigay Maxamuud Sayid Aadan ayaa xusay in aysan ba aqoonsanayn guddi doorasho oo soo saaray jadwal doorasho sida uu warka u dhigay lagana qabanayo degmooyin ka tirsan gobolka Gado isla markaana la doonayo in lagu doorto golaha deegaanka waa sida warka u dhigay guddiga doorashada ayuu yiri oo waajibkooda iyo jiritaankooda aan anaga aqoonsanayn ma jiro guddi koox ay samaysatay wiiri oo dowladda dhexe iyo Xasan marka laga soo tago wiiri guddiga waxa la yaab noqotay Jubbaland ay doorasho ka qabanayaan gaar ahaan Gado ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxa kale oo intaasi uu ku sii daray waa in nin iska hadlay oo caalamka iyo u sheegay dadweynaha Soomaaliyeed khaldaya oo jadwal iska samaystay rabana inuu xaaladda dalka si akiran buu yiri uu basbaas ku sii shubo waa sida warka u dhigay saaxiibayaal waxyaalo dambe ka soo cusbanaada xiisadaha Jubbaland iyo dowladda dhexe muuqaalada kale ay ku daawan doontaa fadlan muuqaalka leega saar YouTube-ka iga daawanaysaa nabadii